السلام عليكم ardayow muuqaalka qaybtiisa labaad weeye haddii aanad soo daawan qaybtii hore soo daawo qaybta waxaan ku eegaynaa xog intii ka balbalaaran hore waxaynu soo aragnay asaasiyaadkii sida loo yidhaahdo English aabe walaal iyo wixii la mid ah sidoo kale waxaynu soo aragnay iyadoo la israacinayo brother iyo sister la israacinayo relatives and extended family ayaynu eegaynaa haddaba markaad aragto grandparents maxay tahay grandparents waxa weeye ardayow waxa weeye baa lagu yidhi waa the parents waa waalidkii of your parents waa waalidkii dhalay adiga waalidkaagan hooyada iyo aabbaha waalidkii iyaga dhalay marka la isku qaaday magacooda ayaa la yidhaahdaa grandparents hore waxaan kugu soo sheegay waxa loo yaqaan sibling haddii aad xasuusato ama xiisadii hore aad xaweeye ardayo aad soo daawatay muuqaalkii hore ama xiisadii hore nala soo qaadatay waad garanaysaa sibling wuxuu ahaa sibling waxaan ku soo sheegay halkii aad ka odhan lahayd sister iyo brother marka la isku daro sibling baa la yidhahaa waayo sisterna waxaynu ognahay inay tahay maxay walaashaada dhediga brotherna uu yahay walaalkaaga labka laakiin markaad leedahay waxaan la dhashay 4 walaalood ee aanad rabin inaad kala qaado maxaad odhanaysaa sibling I have 6 siblings include me waxaan la dhashay aan haystaa anigu maxay 6 walaalood oo anigu ku jiro iyadoo la kala qaadayo dabarkan soo eegaartayo iyadoo grandfather muxuu yahay grandfather waxa weeye baa lagu yiri waa the father of your father waa aabbaha aabbihii dhalay ayaa wax loo yaqaanaa grandfather ama mother ama hooyada waxa dhalay aabbaa dhalay soo maaha sidoo kalena aabbaa dhalay inagu waxaynu dhahnaa awowgay hooyo iyo awowgay aabe laakiin English marka la joogo labadaba waxa loo isticmaalayaa grandfather oo laga wado aabbaha aabbihii dhalay ama se hooyada aabbihii dhalay oo ku noqonaya awowga hooyo tan kalena soo eeg ardayga markaa grandmother maxay tahay waa the mother of your father waa the mother waa hooyadii dhashay maxay your father aabbaha hooyadii dhashay oo ayayda maxay aabba ah ama se your mother ama hooyadii hooyadaa dhashay oo ayayda hooyo ah warwarkaasi macadii ardayo waa cad yahay waadixul kawdul shamsi sida qoraxdu u qadahay ayuu cad yahay halkan soo eeg grandchildren maxay yihiin waa the children waa caruurta of your children waa caruurta ay dhasho caruurtaadu adigu caruur baad dhashay soo maaha caruurtay sii dhalaan maxaa la odhanayaa grandchildren iyagoo la kala qaadayo ayaan halkan ku eegaynaa inaga baabiya casaanka markaa si aynu si wanaagsan isula aragno waayahay soo celi markaa waayahay halkaa waxaa ku yaala iyadoo la kala qaadayo haddana grandson iyo granddaughter maxay kala yihiin hore waxaan ku soo sheegay oo aan ku yidhi marka la isku qaadayo magacyada waxa loo qaybiyaa mar la israacinayo iyo mar la kala qaado ayaa loo qaybiyaa marka la joogo relativeska ama wixii family-ga ah waxaan ku sheegay the children of your children caruurtay sii dhasho grandchildren oo marka la isku qaadayo laakiin markaad kala qaadayso ee adigu aad dhashay inaan ama qof aad dhashay ka soo qaado waxaad dhashayba wiil baad dhashay wiilkii aad dhashay ayaa wuxuu sii dhalay isaguna wiil kale maxaad odhanaysaa markaa the son waa inankii of one of your children caruurtaada mid ka mida waa wiilkuu dhalay oo adigu aad u tahay maxay awow u tahay waayahay halkana inantii weeye iyana waxaa lagu yidhi waa maxay granddaughter waa daughter waa inan ama waa daughter dhawaaqu waa muhiim ama waa inanta one of your children mid ka mida caruurtaada adigu aad dhasho inantay sii dhasho weeye ee aad u tahay maxay awow u tahay inantii waayahay kuwan baad aynu iyagana xooga saari doonaa kuwan intaasaa raacda aad inaad ugu fiirsato weeye great iyo great oo micnaheedu tahay weyn haddii aynu Soomaali rugno weyn waayahay dibna waxaa la yidhi arday waxaa la yidhi great grandfather maxay awowgii weynaa maxay micnaheedu noqonaysaa ka wadaan aynu soo eegno markaa halkan the father waa aabbihii dhalay of your grandfather waa aabbihii
dhalay awowgaaba marka abtirsin bay gashay baashu way dheeraatayba markan waayahay aan markaa iska baabiino asaanka aynu dibadna highlightka ka qaadno iska yara fogeyno si aynu xoogaa u aragno waayahay halkan baan marayaa soo eeg ardayow waxaan ku yidhi great grandfather waxa weeye waa the father waa aabihii dhalay of your grandfather amase grandmother waa aabihii dhalay awowga amase ayeyda kiisii dhalay ayaa la odhanayaa maxay great grandfather haye great grandmother maxaa laga wadaa waa the mother waa hooyadii dhashay of your grandfather waa hooyadii dhashay awowga hooyadii dhashay ayaa waxaa la odhanayaa great grandmother waayahay amase grandfather iyo grandmother ayay meesha ku jirtaa waa maxay waa islaantii dhashay awowgaa dhashay amase ayeydii sii dhashay weeye abtirsiin bay gashay way dheeraatay casharkan haddaan ku sii daro wuu dheeraanayaa laakiin casharka waxaan ka dhigi doonaa qaybta dambe ee insha allah xiisadan inoogu xigta wasalaamu calaykum aad ayaan idin salaamaya